marka aad eegto wadooyinka magaalada Muqdisho qaarkood waxa aad xasuusanaysaa sanadihii ka horeeyay 2011 kolkaas ay burbursanayeen isla markaana ay ahaayeen furmo dagaal hadda oo qaarkood la dhisay magaaladu waa ay ka roontahay falalkii dhici jiray xilligaasi inkastoo ay dhacaan qaraxyo iyo dilal joogto ah ayaa waxa hadan u ekaa dariiqada muhiimka ee magaalada Muqdisho roobkii ka day magaalada ayaa good dheer ka sameeyay jeedka muhiimka ee magaalada Muqdisho mana jirto cid mar qura xasuusatay oo maamulka gobolka Banaadir ka tirsan haba ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka Taabit Cabdi Maxamed wadada idin muuqata waa wadada xiriirisa isgoysada Bakaaraha iyo Dabka waa marin muhiim ah dhismaheeda ayaa lagu qaatay lacag aad u fara badan waxaana dhagax beenaad dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabit Cabdi Maxamed oo ay weeliyaan gudoomiyaasha Hodan iyo Holodaag gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa ay ka dhigantay inuu dan iyo helo kala hayn xaaladaha gobolka isla markaana uu eeganayo dantiisa oo qura taasna waxa cadeyn u ah wadooyinka caynkan noqday aan wali laga dhiidhin iyo faral kale oo isbiirsaday sidoo kale waxa hakad ku jira dhismaha wadada Sodonka oo la sheegay in uu joojiyay shaqadeeda Taabit Cabdi Maxamed kadib markii la bixin waayay lacagtii lagu heshiiyay shirkadda haddaba gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabit Cabdi Maxamed tani qayb ma ka tahay fashilka maamulada uu dhex dabaashay